kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena saddexaad. maanta waa maalinimo sabti ah. haddaba taariikhdu waxay ku beegan tahay 25 bisha 7 2026. wararkii ugu waaweynaa xaaladda gobolka bariga dhexe ayaynu barnaamijkeena ku qaadaa dhigi doonaa gabi ahaantii. haddaba barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa warar maalmaha dhan lasala dhex marayay laakiin iiraan aanay marnaba ka hadlin ayaa caawa warbaahinta iiraan si rasmiya uga hadleen. laba saldhig oo waaweyn oo maraykanka ku kala lahaa qatar iyo imaaraadka ayaa la sheegay in gebi ahaanba halkaa ay maraykanku isaga carareen, way ka qaxeen kadib markii ay u adkaysan waayeen weerarka isdaba joogga ah ee iiraan oo aan lala gafayn meeshii loogu talagalay. guryahay seexdaan ha lagu dhufto gantaalku wuu ku dhacaa, meesha diyaaradaha ku xaraystaan ha lagu dhufto wuu yaalaa. way yaabeen. waa tii la isku haysto lalahaa satellaydyada ruushka iyo kuwa shiinaha, weliba kuwa shiinaha ayaa xogtan bixiyay. iiraan awoodda satellite ay wax walba meeshii loogu talagalay ugu dhufato ma haysato. marka sheekadaasaa marka soo korortay. haddaba markaan idintusoo wararkii ugu waaweynaa arrintaa laga qoray, wargeyska la yidhaahdo ra'yul yowm ayaa qoray goor dhoweyd wakaaladda wararka ee faris ee iiraan inay sheegtay ciidamada maraykanka inay faaruujiyeen oo ay isaga carareen saldhigyada kale ah ad-dufra oo imaaraadka ku yaala iyo al-cadeyd oo ku yaala qatar si kaamil ah, weliba hal xaba xataa laguma reebin oo si fiican bay uga qaxaynaa leey. haddaba wakaaladda wararka ee faris ee dalka iiraan ayaa sheegtay sawiro caddaynaya arrinkaas inay ka heleen dhanka satellaydyada maraykanka. waxaa la sheegay inay labadaas saldhig imaaraadka iyo qatar ay isaga carareen oo ay faaruujiyeen. haddaba satellite-ka sawiradan ugu dambeeyay wuxuu soo qaaday 24 bishan luulyo oo shalay ahayd, waxaana la sheegay inuu muujinayo saldhigga la yidhaahdo ad-dufra ee imaaraadka ku yaala, kaasoo markaa dhanka koonfureed ka xiga magaalada abudabay, in halkaasi maraykanka ay isaga carareen. halkaasi waxay xarun u ahayd talis la yidhaahdo 380 oo ciidamada cirka maraykanka ah, kuwaasoo ay sheegtay wakaaladda wararka inay howlgalladoodu ay qaabilsanaayeen dhinaca sirdoonka, shidaalka hawada oo lagu siiyo diyaaradaha, waxayna shaqadaadu ay ka shaqaynayeen arrimaha khaliijka iyo anadol iyo dhanka galbeed ee qaaradda aasiya ayay qaabilsanaayeen. haddaba dhanka kale ee saldhigga la yidhaahdo isagana al-cadeyd ee markaa qatar ku yaalay, waxaa la sheegay in uu xarun u ahaa koox ciidamada maraykanka oo iyaguna la yidhaahdo 379 oo ciidamada cirka ah. labadan saldhig iiraan waxay sheegtay inay qayb muhiima ka qaateen dagaalkii 28 febraayo ee sanadkan sida wadajirka ah maraykanka iyo israa'iil ay ugu soo qaadayeen iiraan. haddaba waxaa la xaqiijiyey in iiraan ay markaasi ka cayrisay imaaraadka iyo qatar ameerikaanka. waa markii ugu horreysay ameerikaan uu qaxo waayo. iiraan maxay tiri intuusan dagaal ka bilaaban wallay ka tahay meeshan waa ka qaxi doontaa ay tiri. sheekadii marka hadda waa la kala cararay, weliba waxaa wararka ku jira urdunna waa ka cararay, saldhigyadiisii waa raranayaa, waa carar intuu u socdaa marka. sheekadaas marka iiraana marka caawa wakaaladeeda wararka faris ayaa waxay leedahay warkaa waa la isku hubaa, waa cararay ninki, laakiin waa ka daba tegaynaa leyn meeshuu galaba waa ka dabagelaynaa. odagii marka qolo wuxuu isku taataabtay niman farisiyiin la yidhaahdo, markaasaa meel walba looga dabagelayaa. waaya qodobka kale barnaamijka caawa aynu kusoo qaadanayna wuxuu yahay huduu, deganaanshiyo ayaa laga dareemayaa bariga dhexe. xalay ilaa maanta maraykanka xisaabtii uu la soo ordi jiray subax walba ma jirin, saaki waa weedeen. ilaa maanta warbaahintu way sugayeen, waxba ma samaynin. iiraanna way u gambantaa, way sugaysaa. marka waxaa leeyahay arrintan waxaa laga warsugayaa Donald Trump inuu amar bixiyo oo ciidamada maraykanka waxay isku diyaarinayaan weerar ballaaran inay ku qaadaan iiraan. taas qolaa qabta
qolo kale waxay leeyihiin wafdigii shalay Cumaan meesha tagay ayaa wada hadallo iyo waxba un meesha soo dhadhawaa leeyahay odagii Trump marka uu iska joojiyay arig qolo saddexaad waxaa jirta odaga waa tabar dhigay waxa dhibo waxba waa ka qaadi waayay saddex doodooda marka isbarbar taala laakiin waxay muujinayaan kulligood in deganaanshiyo aan cidina ogeyn waxa uu yahay ay ka jirto hadda gobolka bariga dhexe xalay ka soo bilow ilaa maanta ilaa caaway haddaba marka aridatu soo telefishinka Al-Arabiya ayaa qoray wuxuu leeyahay hudu ama deganaanshiyo oo maartay digtooni leh ayaa wuxuu ka jiraa Mareykanka iyo Iiraan dhexdooda oo macnaha wax dhibaato ah hadda dhacay male inkastoo la leeyahay waxa laga warsugayaa qaraarka ama go'aanka Trump uu qaato saacadaha soo socda haddaba deganaanshiyo military ayaa waxa hadda uu ka dhex bilowday Mareykanka iyo Iiraan iyadoo saacadihii la soo dhaafay aanay jirin wax dhibaato ah ama dagaalo iyo duqeymo la isweydaarsaday waana markii ugu horeysay tan iyo markii dhowr iyo 10 maalmood ka hor xiisadan cusub ay bilaabatay Mareykanka iskiis uu u joojiyo xiisadii iyo weeraradii uu ku waday Tahraan haddaba waxay ku macnaysay ama telefishinku ku macneeyay in arintani ay tahay wax la yiraahdo hudu muaqat ama deganaanshiyo ku meel gaar ah oo wali wax heshiis lagu yahay aanay jirin ayaa macnaha ka jirta la leeyahay halkaas waaye marka waxa leeyahay deganaanshiyo aan la ogeyn waxay ku imaatay ayaa markii jira marka qolo walba si ay ku macneynaysaa saddexdii qolo marka dib walba qaabkaas marka hadda waxa leeyahay xaalku marka sidii hore ma aha waa degan yahay la leeyahay xaalku saas waayahay dhanka kale Israa'iil waxa leeyahay iyadoo xalaydii hore ayayba diyaar ahaydo in weerar weyn lagu qaadayo Iiraan oo maartay ay soo diyaar garowday laakiin waxba ma badhicin kii yaraa xataa ma dhicin alle marka Israa'iil ayaduna waa yaabantahay maxaa baasha aamusiyay leedahay haddaba marka aridatu soo wararkii ugu dambeeyay hay'adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa sheegtay Israa'iil inay xalayba weerar Mareykan oo qawi ama awood badan ay sugaysay laakiin waxa leeyahay weerarkaasu ma dhicin oo weerar ballaaran in lagu qaadayo Iiraan ayay qorsheynaysay Israa'iil oo marka weerarkaas ayay waxay iyaduna heegan uga jirtay gantaalaha Iiraan in ay marka iyadu soo aadi kareen marka iyaduna waxba ma dhicin Israa'iil laftirkeeda ayaa yaabanba weerar weyn in la qaadayo xalay ku diyaar garowda la leeyahay waxba ma dhicin Trump waxba ma la weerarayo iska dhahay ninkan haye kii yaraa xataa weeraradii kale xataa ma dhicin marka xaalka dadkii oo dhan way yaabeen marka baasha koraa loo sidaa xagee ka buskicin doontaa waatii Mareykanka safaaradiisa wasaaradda arrimaha dibadda degniina iyo iska soo daba saarayeen xalay iyo habeen hore iyo waxna ma dhicin hadda baashi waa taagan tahay waa la isu gaban yahay xagee marka laga buskicin doonaa laba yaqaan waa arkaynaa kulley wixii soo bilowdo waa arkaynaa waaye qodobka ugu dambeeya barnaamijka caawa waxaynu ku soo qaadanaynaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi ayaa si kulul u difaacay mowqifka Iiraan ee ah inay ka qaadayso canshuur maraakiibta halka marayso ninka wuxuu leeyahay annagu sharciga noo diidaa muxuu dawlado badan oo caalamka oo baddu sidaan annaga waliba si annaga meeshay noo jirto Hormuz meel ka fog u jirto ee lacag ka qaata annagaba iskaleeba meesha la marayo yaa noo diidi kara sababta annagu dambiga aan ku nahay dambi ay tahay inaan cashuur ka qaadno wixii agteena maraya dawladaha kale ee caalamka ee sidan oo kale baduhu u ag marana ay cashuur ka qaataan ay sharci u tahay hana loo sheego dhahay maxaa marka annaga dhibaato ah haddaan cashuur ka qaadano dadkii oo dhan baa ka qaaday marka ninkan aad u isku difaaca haddaba aan idin tusoo wararkii ugu dambeeyay warbixinadii ugu dambeeyay ee ku saabsan wasiirka arrimaha dibadda hadalkiisa waxa leeyahay wasiirka arrimaha dibadda Iiraan wuxuu dalbaday inuu canshuur qaadi karo oo Hormuz ka qaadi karo sida ayba u qaado Masar kanaalka Suez ay uga qaado Panama ay u qaado Turkiga uu badda uga qaato Canada ay uga qaadato aniga waxa loo diiday Masar kanaal Suez ka qaata Panama kanaalkeeda ka qaadata maartay Turkiga Bosphorus ka qaata Canada waa nin walba waa qaataa bad soo agmarta markabkii mar cashuur ka qaada
annagu marka tabar ma lihid miya aan cashuur ku qaadi karno walle ka tahay hadda kadib cashuur lee qaadaynaa ama waa la isku baabaa meeshaan marka xaalku marka halkaasuu baraa nimanka Iiraaniyiinta waa soo jeesteen waxay leeyihiin annaga keligeen waxa dembi ka dhiga maxay adduunkoo dhan nin kasta oo ay badi ag marto lacag ka qaataa annaga way uga qaadaneen markii horaaba annaga inaan ka qaadanay ahayd hadda laakiin waa soo jeesanay lacagaa rabnaa meeshaan haddii la marayo haddii kale cid maraysa malay leeyihin marka xaajadu halkaasay maraysaa dhanka kale baxrul axmarka waxaa leeyahay sacuudigii mar kale ayuu galabta weerar kale ku qaaday goobo ay joogeen xootiyiinta xooti iyo sacuudi waa is hayaan halkaas xooti maanta oo dhan haddaa weerarto waxba ma laga qaada ayaa lagu leeyahy sacuudi maanta dhan soo weerartan maraakiibtaadu see ku marayaan halkan shidaalkaaga suu u shaqeynaa warshadihii batroolka sifeynayay iyo kuwii kale kulli dhagtuu ka saara xooti marka xaajadu halkaasay marka maraysaa marka arrinkan waxaa sidoo kale ka hadlay Iiraan weliba wasiirka arrimaha dibadda Caraaqji ayaa ka hadlay wuxuu yidhi meeshaas walaalow waxay ku dhaanta la waayi waay magtay wada hadal ma ahane wax looga qaadaa male xooti marka sacuudi gabgabta ha joojiyo nimankaa iskala hadlo markii hore wada hadal ay ku kala joogeen Iiraan warka waa u cadeys sacuudi waxay waxba ma ku cunaysid nimankaas adiga lee wax ka halaabayaan marka xaajadu halkaasay maraysaa wararkaas ugu waaweynaa inta aan mar kale kulmayno asxaabay iyo barnaamijyo kale sidaas iyo nabad